السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن يرسول دواد ما أنت وحرباير نسيو تلوين جناعسو آد حقيقة مهمة. وحربادك ربيني وحمال كشدان وحديفان برنامج شيء بلابان إن هل مد مهمة أنو شيء. وحقات سوق جلينيسيد وإن تران تدوباهن وإن ماركت أي لعقتها دمان أي كلاهاي تد إبسنين أي كده تران. waa inay sidoo kale caqabad bulshada haysta oo ay u xaliyaan qiimo jaban ay uga dhigaan marka aad dadka caqabada aad u fududeysid lacag ayaad ka helaysaa haddaba maanta waxaan la wadaagayaa waxaan ognahay badeecad guri kasta oo Soomaali leedahay laga isticmaalo oo taasi ay tahay in guri kasta dab laga shido inta lagu sameeyo maalintii gas la isticmaalo gaasti waxyaalaha qaaliyoobay ayay ka mid tahay oo haanta yar ee 10 litir kooyo 10 litir ayaa maanta $20 $22 $22 meelaha sii socota haddaba waxaan idin la wadaagayaa maanta shirkad Mareykanka ku taala oo aasaastay barnaamij maalintii 2 saacadood gas free ah oo renewable energy ah oo dabiici ah oo faa'iido kale wadato oo gaastaas aad wax ku karsan kartid 2 saacadood sidoo kalena ay kaaga soo baxayso fertilizer ama nafaqooyinka bacrimiyaasha beeraha lagu waraabiyo ee dhirta iyo deegaanka waxtarka u leh waxa jirta shirkad la dhaho Home Biogas oo Mareykanka ku taala oo adeegyadeeda iyo serviceyadeedu ay ilaa Afrika gaadheen ilaa ma aragtay dalal badan oo bariga dhexe gaadheen oo Mareykanka ku taala oo niman dhalinyaro ay tixraaceen hab qudaartii ay guriga basashii iyo mooskii iyo kaaroodkii iyo saladkii caanihii soo haray hilibkii soo haray waxaas oo dhan gas u bedelaysa waa system adduunka la yaqaano biogas la dhaho laakiin waxaan moodaa inay yara tixraaceen oo marka koowaad aad systemkooda markaad xidhaysid kaliya aad u baahan tahay inaad saala looda saaladeeda manuurkeeda ama geela ama ariga noocyadiisa kala duwan idaha sida ariga caadiga oo kale kaliya marka koowaad 15 litir oo saala oo kale aad ku shubaysid xageeda hoose bacdaas oo bac madow ka samaysan qarbad madow oo loogu talagalay oo ilaa 15 sano la isticmaali karo ayay tixraaceen qarbadkooda haddaba systemku uu shaqeeyo nimankan dhalinyarada ay dejiyeen walaalayaal waxa weeye waa dhowr qaybood ka kooban yahay waa qarbad durable ah oo ilaa 15 sano la isticmaali karo wuxuu leeyahay qaybtii lagaga gurayay biyaha saalada ariga ama xoolaha raashinka hadhowto maartay soo hara waxyaalaha soo dhan gaasta laga sameeyo qayb lagaga gurayo leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay qayb wax ka baxaan laba nooc baa ka baxa qaybtaas qayb waa filterka oo xagiisa sare ayay gaasta u gudbisaa oo tumbada ku xiriirsan shoolada ayay gaasta u gudbisaa qaybta hoosena waxa ka baxa biyaha fertilizerka ah ee beeraha loo isticmaalo oo aad wax ku beeran kartid oo nafaqooyin badan wata oo fertilizer organic ah marka adeega guryaheena ka soo hara dadka hoteelada leh dadka saladka basasha yaanyada muuska waxyaalahaas oo dhan oo la sugeeyay hilibka yar soo hara waxaas oo dhan ayaa iyo biyo iswata ayaa xagga hoose ee qarbadkan madow ee qoraxda sida kulul u soo qabanaya lagu shubayaa ka bacdi waxaas hadhowto bacteria yar hoosta ku sameynaysa ayaa dilaacinaysa karkar ayaa ka imaanaya way kala miirmayaan qaybna biyo noqonaysa qaybna gas qaybta gaska noqotay ayaa waxay u gudbaysaa xagga sare taas oo hadhowto tumbooyinka aadaysa shoolad loogu talagalay biogas stove la dhaho waa shoolado biogasta ku shaqeeya biogasta waxyaalo badan ayaa laga sameeyaa oo ay ka mid yihiin lo'da maxay ahayd saxaradeeda ama saaladeeda
wasakhda oo kale, biyaha wasakhda oo kale, waxyaalaha maaragtay qudaarada soo hadhay oo kale. Marka nimankan hadda waxay leeyihiin guryuhu qudaarta kaliya unbay ka sameynayaan gaastaas. Marka koowaad aad setup ka sameynaysid ama systemka xidhaysid baad u baahan tahay inaad 15 litir ilaa 30 litir oo saala ah inaad soo qaadatid oo biyo ku qastid oo ilaa 2 isbuuc 3 isbuuc meelaha inta u dhaxaysa aad sugtid. Haddaba systemkoodaas kartoon yar ayuu ku jiraa, 2 kartoon ayay ku koobeen. waxa يعني ku jira shooladii, tuumbooyinkii, waxa ku jira caagad, wax allaale waxaad u baahnayd oo dhan ayaa ku jira. waxaad ku xidhanaysaa daaradaada ayuunbaad ku xidhanaysaa. adeegii xaafadda la jarjaray unbaad maalin kasta ku koraysaan 2 saacadood ka bacdina waxa weeye gaastii ayaa dareer ah oo shooladii loogu talagalay ee biogaska ahaa ayaa ku daarmaysa. shoolada biogaska ah Alibaba ka gadan kartaa, online ka gadan kartaa, dad caalamka joogtid waa dalban kartaa. waa biogas ay ku shaqeysaa. hadhowto gastaas 2 saacadood ay cuntada ku karinaysaa, waa maalin kasta. biyaheeduna waa fertilizer organic oo beerihiinii baad u qaadan kartaan ama dhirta guriga kugu dhex taala ayaad ku shubi kartaa. haddaba fikraddan maxaan u soo hadal qaaday waxaan in badan saxaafadda ka arkay يعني iyadoo gaasta iyo qaaliyooday laga cabanayo. adduunkii wax kasta maanta shidaalkii waa qaaliyoobaya, gaastii waa qaaliyoobaysa, korontadii waa qaaliyoobaysa. dadkii waa dad dan yara, qudaar way heli karaan. intay suuqa qudaarta tagaan ay qudaar soo qaadan karaan oo googooday oo ay ka samaysan karaan haddii systemka loo soo iibiyo oo guryaha loo xidho. wax ama waa la tixraaci karaa oo systemkaas mid u dhow oo kale ayaa la samayn karaa. dad ayaa foosta xataa ku dhex sameeya digester wax la dhaho oo bahalkaas qoraxda gaasta ugu bedelaysa wixii wasakhda marka gaas u bedelaysa ayaa muhiim oo loo baahan yahay. haddaba waxaan ognahay in guri kasta dab laga shido, in guri kasta cunto laga sameeyo, in guri kasta looga baahan yahay gaas ayaan ognahay. maadaama aad ogtahay inuu dimaankii jiro oo baahidii la qabo, markaad xal u keentid bulshadii waxa dhacaysa in bulshadii marka lacagtii ku quuldho oo iyagana systemka markay xidhaan ay gaastii 20-40 dollar bil kasta ay ku bixinayeen ay halka ugu baaqato. halabuurna waad samaysay, dadkiina arrin dabiici oo renewable energy ayaad u samaysay, baahidii guri kasta taalayna waad xalisay. waxyaalaha dhaqaalaha lagu sameeyo waxa kamid ah maanta dukaan yar oo dhar hadaad furatid ama dukaan yar oo electronic hadaad furatid, qofka ama dukaan daahyada lagu gado hadaad samaysatid, dadka ku agdhow oo bishii dhowr bilood mar u soo baxda badeecadaada ayuunbaad saameynaysaa. laakiin hadaad samaysid wax guri kasta looga baahan yahay, faa'iidadaadu iyo dhaqaalahaagu way ka jaanis badan yihiin inaad horumar ku samaysid oo lacagaad ku samaysid. sidoo kale ninkan adduunka ragga maalqabeenadeeda kamid ah ee la dhaho Bill Gates taqaanaan ayaa marka shirkadda Microsoft uu asaasiyay ayaa wuxuu yiri waxaan rabaa inaan sameeyo adeeg ama badeecad guri kasta oo bini'aadamku ku nool yahay looga baahan yahay. guri kasta bini'aadamka yani ku yaala laga isticmaalayo. waxaan ognahay maanta Windows 10 operating system keeda inuu kombiyuutarada ku jiro oo guri kasta laga isticmaalo. in Microsoft ay wax ku qorano, in Hotmail-ka ay wax ku kala dirsano. waxyaalahaas oo dhan Bill Gates ayaa iskale. wuxuu ka fikiray adeeg guri kasta looga baahan yahay oo lacag uga soo bixi karto. marka inagu aanba Afrika shirkada kala gaarin hadday sameeyno adeeg guri kasta Soomaaliya dabka u shidaya lacagna inaga soo laaban karto, waa faa'iido aan la heli karin. haddaba shirkaddan YouTube-keeda iyo fiidiyoyadeeda systemkeeda qaabka uu shaqeeyo qaybta comment-ka aan dhigayaa. fadlan haddaan muuqaalka halkan soo gaartay waan soo gaaray, like-na waan saaray xagga hoose igu soo qor, aad baan kaaga mahadcelinayaa. hal abuurkan la yimaado in maskaxda ka shaqaysiina ayaan u baahanahay, caqabada bulshadeena aan xalino si ay dadkeena horumar u sameeyaan, inaguna aan dhaqaale u sameeyno. koobigana la iska daayo insha Allah saasin horumarkooda gaari karnaa. fikrado kale horumarna la wadaagi doonaa. barnaamijkii beeraha iyo arrimahan beeraha la xiriira agri business-kana halkaas ayaan ku soo dejinayaa sad muuqaalo kale oo fikradahan la mid ah aad u daawataan. walaalkiin Sakariya Cabdullaahi Cali. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.